السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان umada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaa idin leeyahay waqtigii waayahaydii wacnaado halkaad iga jeedaan waa Amar Dhaqata official oo idin leh habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ayaan kugu salaam walaal adiga daawanayo waxaan ka codsanayaa maanta inaad hiil iyo garba kaaga baahanahay waxaan kaaga baahanahay hadaa magaalada Muqdisho joogtid amba Soomaaliya aad joogtid amba dunida dacaladeeda meel kasta joogtid daafadeeda waxaan ku leeyahay u hiili walaasha fahmi waa gabar Soomaaliyeed waa walaal Soomaaliyeed waa gabadhayna waa ilmahayga kaleeto marka waxaan leeyahay fahmo dibka haysto aniga wuu haystaa waayo dhalaqaba dhalama jibiya leeri dhalaqaba dhalama jibiyo fahmi ani ilmahayga gabdhayga waa dhalay gabdhayga kala waayo waxdan Allah naga haayay ciyaar suuq baa u gafay ciyaar suuq ayaa u gafay nin xun ayay waxay mooday qof muslim ah oo walaal ah oo ummadda Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam laakiin nin xun ma laha qabiil nin xun ma laha walaal nin xun islaamka ma laha shaydaanka ayaa wax tusay shaydaanka asaga wax tusay oo haddana wuxuu ku sii xadgudbay gabadha sharafteedii karaamadeeda gabadha aad ay qaali u tahay gabdhaha in dhinacoodana Soomaaliya hadaan iskama marno wax walba isku sameeyno anaga as dagaalno isdilno wax walba isku sameeyno laakiin gabar waa qaali meel kasta joogtana gabar Soomaaliyeed waa qaali waxaan leeyahay maanta fahmo adiga kaaga baahan tahay hiil ayada ugu baahan tahay qof walba Soomaaliya meel taagan ay ugu baahan tahay gabdhihii hore loo xumeeyay ayagana waxaan leeyahay garabkooda Allah galo ilaahay waxaan ka baryayaa ayagan inay cadaalad helaan tan maanta qoyan ayaa ka hadlaynaa gabar kasta oo u danqanaynaa haddaan maanta awoodo aniga Amar Dhaqata ahaan haddaan awoodo maanta laba door xataa isma disheed haddaan aniga awoodo waaya amba talada ahaay amba jaga ahaay heli maayo baa ogahay anigana shariicada ima banan inaan madaxweyne noqdo waan ogahay shariicada islaamka ima ogolo maasha Allah marka waxaa idin leeyahay rag ka raali ahaada xoogaa xamar la iska joogaa ma fahanteen ninkana meesha ku dhuumaaleysanayo waa magaalada Muqdisho ya rabad meel kasta laga geeyo elboorka laga dhigo cir iyo dhul ha laga dhigo xuduudaha laga dhigo wali xuduudka Soomaaliya kama uu sabixin haduu ka baxay dawladda Kenya iyo dawladaha dariskana waxa ka codsanaynaa inay gacan ku dhiglahaas ay soo qabtaan xuquuqda bini'aadamka ku tubtay Soomaalinimada ka baxsan islaamnimada ka baxsan ya xuquuqda bini'aadamka ka baxsan marka waxaan leenahay nin walbo hadaa maanta qarisid birito waxa waaye adiga ku qarsanaysaa sababtoo ah gabadha kula dhalatay waa dhashay waa qabtaa waana u dhaxday ma fahanteen Soomaaliga wuu tirbiyaa maanta meel leega taabto sakiinteeda dhiig bal aniga siyaasad ma galo qabiilna ma galo laakiin gabar dayacan iyo hooyo dhiban waxaan jeclahay inaan u hadlo ma fahanteen laakiin siyaasadda aniga shaqo kuma leeyahay iyo qabiilka marka waxa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka codsanayaa codsiga wadana waxa waaye waa inaad garab ku siisaan meel kasta joogtaan hadda waa dil soo qabta dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya iyo meel kasta sharci ka jiro islaam ummadda Nabi Maxamed sharci muslimiin ka jiro waa inay soo qabtaan ninkaas waxaan leeyahay dalkeena maanta sharci islaam waa ka jirta ma sha Allah waana haysanaa waana lagu dhadhiin marka diinta waxa ka qabto waxa u deynina oo la amriyaasha u deynina oo la amar kasto Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa maamul gobolada ahaado haddii rabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ahaado waxaan leeyahay oo amar kasto Soomaaliyeed aan leeyahay waxaan leeyahay gabadhan masaakiinta gabdhaha u hiiliyo waa idin ka codsanayaa gabdhaha u hiiliyo inuu Ilaahay diri idin hiiliyo waa gabar miskiin waa kontalee waaye naraga wax uu iska dhici karaa ya laakiin gabar miskiin waaye haday weyn tahay iyo haday yar tahay gabar masaakiin waaye ma fahanteen si kasta gabar u xuntaana gabar waa gabar markasta adiga Ilaahay tarak isku tirar idinka ma dhigin kontalee Ilaahay ka dhigay marka waxa idin ka codsanaynaa meel kasto ay ka jirto xukun oo dalka Soomaaliya ah Puntland Somaliland galmudug Bay Boqol Hirshabeelle koonfur galbeed waxa dhan waxa leeyahay haloo ka umadaas intaas oo la amarka Soomaaliya oo la amaro dhan madax kasto Soomaaliyeed waxa ka codsanaya in naxariis leh anoo gabarnimo ku hadlaayo anoo Soomaalinimo ku hadlaayo anoo damiirka ku hadlaayo dhaqanka ku hadlaayo sharci islaam ku hadlaayo oo ku hadlaayo xuquuqda bini'aadanimada u hadlaayo qof bini'aadan ahay qof bini'aadanka ugu fiican ummadda Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam qof muslim ahay
muslimnimada waxaan idinkaga codsanayaa soomaalinimada waxaan idinkaga codsanayaa in aad ninkaas xunka ah oo soo qabataan birrito haddii lasoo qabto oo maxkamadii la keeno xildhibaane ha dhihin adeer baan u ahay anaa ka damiin ah wasiir ha dhihin anaa ka damiin ah anaa adeer u ah qof kasta oo maanta xil haayo waxaan ka codsanayaa birri gabadhaada ku imaanaysa amba Mareykan ha joogto amba Canada ha joogto amba Australia ha joogto meel kasta dunida ka joogto way ku imaanaysaa gabartaada tilka ayaan ya maamaha Soomaaliyeed waxay tiri ya saasan ku gudta xasan ku ma fahantiin wax kale aan ma dhahay mana dhihi karo afkayga ma qabto marka waxa idin leeyahay u hiili jaabka ha gashanin dambiile jaabka ha u hiilin dambiile waayo kufsi u geystay gabar Soomaaliyeed ayuu dhibaato u geystay sharafteedu ka qaaday karaamadu ka qaaday wax walba ka qaaday war horta karaamadaada iyo sharaftaada waxaan leeyahay gabadha Soomaaliyeed saas kuma dhimanayso qof maanta oo aqli leh sharaftaada karaamadaada saas kuma dhimanayso waayo waxay ugu dhimanaynin hadda sharaftaada waxa hadda qarsan lahayd oo qof kale meelaha ka arki lahaa darnaa lahayd hadda xitaa qof kale meelaha ka arko war gabadha waxa nina waxa soo guursada Allah naga haaye ya nina waxa soo guursanayo naag oo xaalkeeda Ilaahay og yahay ya naagta bilaadan waa gafaa Ilaahay gafin subhanahu wa ta'ala aadana leeyahay waa laga faayaa laakiin waxa la rabaa gafkiina ka soo noqotay gabadha dhibaato u geysatay waa xumaysay war Ilaahay marka cabsado ina oo waxa la rabay inaad gabadha xaal bilisay oo tiraahdo xaalkan xumaynta ana geystay nin xunna kiisaas ma garanay garad laawe waa eber garad laawe ma garanay iimaan gaab meelaha iska maraayo marka waxa leeyahay xaq iyo baadil isku mid maahan dulmiga gabdhaha ka daaya xaq iyo baadil isku mid maahan gardarada ma fiicneen dulmiga gabdhaha ka daaya ya gabadha maanta day wax ka sameeyay xataa even waxa la rabaa inaad ku fiirsid hooyada gabar waaye hooyadaas fiiri haday ku xumayso hebel ay ku xumayso hebel asaan hebel ay ahayd hadda dhehaysid maanta aakhir hebel ku galaayo tan kale waxaan ku leeyahay Soomaali way istiqaanaa gabadhaas iyo wiilkaas dad bay ka dhasheen qabiil bay ka dhasheen waxba lama qarinayo wax la qarinayo habeeraatay ma jirto ya qabiil baa laga dhashay dalifkaana waa la wada buuxa Soomaaliya waa buuxaan dadka qabiil la isku raadinaya talow leeyahay walaalow leeyahay ehlow leeyahay qaraabo leeyahay waa inay gujiga sawiirka uu wareegoyaa lama moogo waa inay soo fariisataan social media aad dhahdaan anagoo reer hebel amba anagoo saan abu wiilkaas aabiisa ahay habartiisa ahay walaashiisa ahay dibka waa dhacay raali hal ahaado xaal iyo xumeen shariicsan ku xay qabto waa inaad dhahdaa laakiin inaad guriga ku qarsatid adigana iska aamistid masaakiintana meelaha ay ka ooyso birri saa adiga u aamustay habartaas ahaa wada irabtid adiga idaysaata habar u haaw aday ku taala aniga habar u ahaa aniga ma qarinayo wax aan qarinayo habeeraatay ma jirto waayo haqa Ilaahay dabool kuma dhihin aniga waxa siyaasadda shaqo kuma leeyahay laakiin waxaan oo kale arrimaha bulshada shaqo ku leeyahay ma fahanteen qof waxa ay dadkeeda inay u heeliso shacabka dhibaatooyinka afkeeda ugu sheegto laakiin aniga wax siyaasadda qabiil shaqo kuma leeyahay ma sheegayo mana sheegi karo waayo ma ba aqaaniba inaan sheego tan kale tan oo kale hadda shariicada islaamka maanta dad qabiil ay soo fariisto oo dhan waxa uu hadashay waa iska dhici karaa waayo waxa leeyahay maxaa dhacay gabar Soomaaliyeed la xoogay qabiilkeeda wallahi ma aqaan asigana qabiilkiisa wallahi ma aqaan ina been igi sheegeen laakiin gabar Soomaaliyeed la xoogay ayaa u hadlayaan leeyahay hadii baqbaq ay keentana dadkan adduunyada waa la wada joogaa hal isku aqoonsada Ilaahay yiri baasha la kale daba kac ma dheen faanteed warka waa idin dhameeyay marka waxa leeyahay ninkaas la soo qabto kunni koo jir waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya aad iyo aad waxa uga codsanayaa inay gacan ninkaas xunka ah oo dambiilaha ah oo gabadha kufsaday fahmo waxaan ku leenahay garabkaadana na fahmo ama fahiimo magacaya lagu wacay gabadha fahiimo iyo fahmo waxa idin leeyahay waxaan ku leeyahay abay bacanto habar yar gabadheedo kala tahay xal qaado fahmo xal qaado tan kale waxaan leenahay dadka la tafahmo urka ha iska xumeynina insha Allah waa la soo qaban doonaa tilka ayam gacanta oo soo geli doonaa gacanta dawladda ama gacan kale oo ummadda Nabi Maxamed oo soo geli doonaa insha Allah laakiin waxa la rabaa in la isku yeeliyo maanta gabar inta lagu kufsado waa la iska aamusay
xagga lagu kufsado la iska aamusay taas qalad weyn waa weli xeer Soomaali uma ahayn ninka sawirkiisa waa la wareejinayaa dadoo ka dhashay ehelow ka dhashay wax buu leeyahay xeerka saas ma aha dowladda Soomaaliya qof kasto xilli hayso maamul goboleed kasto waxaa idin leeyahay gabadha la soo qabto wiilka ninkaas gabadha la soo qabto baasadee war inta u geysto ka badan ha loo geysto naga raali ahaada geedkana xoogaa ugu soo sakaday ilmaha meesha joogaan marka waxaa idin leeyahay asxaabi hadal badan haan ma buuxshay waa inaan u heelnaa aan ka dhidhinaa gabadheena Soomaaliyeed gabdhaha gabadh kasta Soomaaliyeed oo dhiban waxaa leeyahay dibka lagu geystay waan ka xunahay dibka lagu geystay waxaan jecelnahay qaali tilka ayaam inuu Ilaahay keeno inta dhiban oo anaga kaleeta ama gabadhaan oo kaleeta anaga waan ah oo Soomaaliyeed ah gabdhaha salmid ahay oo dhiban gabdhaha dhibana kamid ahay ma fahanteen marka waxaa leeyahay dhibanayaasha Ilaahay oo dhibdaamo tan kale waxaan leeyahay hooyoy cunugaada hoo helin deena amaantada aakhiraha fiirsan soo dhiib cunugaada guriyaha oo ku jira laga soo bixiyo meel kasto gal laga daba galo dawladda Kenya Uganda Tanzania Ethiopia waxaan ku codsanaynaa in ninkaas sawirkiisa social media uu yaala waana la wadaa yaa qof kasto af Soomaali ku hadlaayo oo dunida joogo oo madax ka ah dawladaha madaxda hadda Kenya kale waxaan leenahay madax Soomaaliyeed oo joogto waxaan ka codsanayaa Kenya dawladda Kenya madaxda Soomaaliyeed waa inay ninka soo qabtaan Uganda sidoo kale safaaradan ku leenahay oo inoo joogan madaxdeena waxaan leenahay soo qaba adigana reer Uganda Tanzania sidoo kale Kenya sidoo kale meel adduunyada Soomaaliya maanta safaarad ku lahayn ma jirto waa in loo kacay gabadhaha Soomaaliyeed dambiil kasta inta wax samaysto xuduud ka sii baxayo madaxda Soomaaliyeed wax xuduudaha joogeen wadamadaas anaga safaaraddeena xuquuqda gabadha Soomaaliga ay lahayd xuquuqda adiga meesha u fadhid nin xun inta soo qabsado meesha joogtid u imaanayo waxa ka codsanayaa mudane in aad u hiiliso gabadha Soomaaliga oo u hiiliso gabadha ummadda Maxamed islaamnimo ugu hiili haday walaasha ahayn hadaa waa aad baryaaya gabdhaha dhibka ka daaya kufsiga gabdhaha ka daaya kufsiga ma mudne xumaanta ma mudne waa hooyo waa xaawilay ka daa walaal ka daa hadda way dhacdo mar kale nagu soo noqon sida iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa amarno ka taawada leh qayrada ay qaado iga raali ahaada madax kastana waxaa leeyahay hurdada ka kaca madaxdeena waa hurdaan madax kasto waa hurdaa maqrib iyo maqshid meel kasta joogtiin Soomaaliya madaxdeena waa hurdaan gabdhaha waa ka seexateen xuquuqda ay lahaayeen laakiin insha Allah tilka ayaan Ilaahay cadaalad keeni doono dib male waa laga baxaa dhibka lagu muwaaro waayo maalin kasta gacmaha Ilaahay toogo wax la'aan soo micilshin wax la'aan Ilaahay soo micilinayo insha Allah waa laga baxaa khayrkan oo noo dambeynaya hadduu Ilaahay raasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh